wadaadkaasi si aanu uga guurin ama si uga tegin waxa dhaqanku ahaan jiray gabadh baa lagu dari jiray dabeetana waa la xoolayn jiray 30 ama 40 ama 50 inta loo dhiibo ay hadda reerku xoolo badan leeyihiin la yiraahdo 15 jis marka damaysaba qaalin baad leedahay markuu kontonka inaan u dhameeyo quraanka boqol halaad uu helay Soomaalidu dad muslimay ahaan jirtay iyadoo reer baadiyana hantina lahayn waxna haysanin ay islaamnimadooda haysteen su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan ninka baadiyaha ku noolaa ee aan maal kale qabin neefka xoolaa mooyaane sidee buu waxbarasho diineed u wadi jiray waxbarashada gaalku markay timi waadan bay ahayd dadku aqoon bay lahaayeen diin bay lahaayeen afaf bay yaqaaneen iyagoo baadiyahooda degan oo gaalku unda in waxii af ingiriisi laga dhigaa unba soo horreeyay dadka barba waa isla tacliinta in gaalku bilaabay su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan dadkani say wax u baran jireen qofka bini aadamka waxbarashadu halkay qiimaheedu ka joogo ayuu ka jooga hantida uu ku bixinaya intay laagtay waxay u jeclaayeen geel buu ahaa ama wadaad safar oo safar ku soo maray ama mid ay iyagu raadsadaan ayay keeni jireen meesha degan wadaadkaasi si aanu uga guurin ama si uga tegin waxa dhaqanku ahaan jiray gabadh baa lagu dari jiray dabeetana waa la xoolayn jiray 30 ama 40 ama 50 inta loo dhiibo ay hadda reerku xoolo badan leeyihiin la yiraahdo 15 jis marka damaysaba qaalin baad leedahay markuu kontonka inaan u dhameeyo quraanka boqol halaad uu helay haddaanu reerku xoolo badan lahayna neef hal qaalin aad isku leedahay markaad 30 u dhamaysid idan 50 halaad ama 60 halaad ayuu sanad 2 sanadood ku shaqaysanayay baadiyahana kama jirin meel 60 halaad laga shaqeeyo sanad ama 2 sanadood lagu helo ma jirin taasi waxay fudaydisay baadiyuhu meeshu doonaha ku yaala inaan caalimi degi karo meeshu doona wadanka kaga yaalo baadiyaha Soomaaliyeed inuu caalimi degi karo sababtu u degayana waxa weeyaan isaga la kafaalo qaata oo reer iyo xoolaba wuxuu u baahnaa la siiyay isna wuxuu isku dayay inuu dadka diintooda kafaalo qaato oo marka inuu diinta dadka baro hadda dhaqanka inuu soo biiray wuxuu yahay dadku inay wax qabsadaan mar rabaan in wax loo qabtaa bay rabaan niman habaar qabo galbeedka ka yimo hay'ada la yiraahdana dependency bayna bareen inaynu cid kale wax ka sugno wax yar oo dadku qabsan lahaaba dadku wuxuu sugayaan hay'ad baa soo socota walidaalika muslimka ku istiraahdo wax si hay'adina uu ka soo dhiibtaa la weydiinaya ileen hay'ad baa la baray wax la yiraahdo dadkan inay meel ku tiirsanaadaan aan ilaahay ahayn ayay barteen anu markaa waxaan idinku adkaynayaa waxa weeyaan reer Soomaaliyeed oo aan macallin iska bixin karin ma jiro reer Soomaaliyeed oo aan sheekh qabsan karin ma jiro tusaale siinaya reeraha Soomaaliyeed reeraha hadda ugu aqoonta diineed ugu badan wixii ay Soomaalidu taqaanay nin sheekha reerkoodii u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi 400 oo inan halay keeno 400 oo inan baa loo keenay 400 inan buu quraanka baray dabeetana kutubtu u bilaabay ilaa manhajkii Soomaalidu dhigan jirto u dhigay wixii Soomaaliya cilmi dadku ku yaqaanay buu baray 400 inan markuu quraanka u dhameeyay wuxuu yidhi 1600 hablood halay keeno reerkii dib bay u shireen 1600 hablood baa loo keenay 400 inan buu min 4 dumar u guuriyay nin walba 4 buu u guuriyay reerkaana xoolaynaya dabeetana 400 qoys baa reerka dhex degay oo culimo ah oo diin garanaya Soomaali reerkaasi hadda wuxuu ka mid yahay reeraha ugu diin jecel ama ugu aqoon diineed badan hal dinaana bedelay reerka oo dhan waxaan uga dan leeyahay marka haddii aynu rabno inay diini faafto waa in dadkeedu faafiyaa ma aha qolo carabeed oo meel kale ka timi ama wadaad hargeysa ka yimi inuu wax idin dhiga maaha waa inay dadka meesha la diintu qiimo ugu fadhidaa hadday diintu qiimo kuugu fadhido maal iyo waqti iyo naf baad gelinaysaa caruurta inuu quraan barna maaha waa in dadkeenu diinta bartaa dadka waaweyn siiba
dadka waaweyn waa inuu qur-aanka bartaa, waa inuu salaad bartaa, waa inuu caqiido bartaa, waa inuu wixii uu ilaahay la hortagi lahaa uu bartaa. tan waa ka wada tegaynaa. inagu ninka waxoogaa xoolaa dhaqa ama dhowr daarood dhisa ayaa waxaynu idhaahnaa waa nin ragga ninkaasiyo waa meel buu ka soo baxay. laakiin ninka aakhiro meel ka soo bixi waaya kaasunbaa hoogay. ninka aakhiro ilaahay ka badbaada ee janno helaana kaasunbaa aan nin meel ka soo baxay. taa haddaydan qorshaha ku darsanine qorshihiinu intan idiin muuqata yahay, reeraa degi jiray meeshan aynu wada joogno, odayaal inaga horreeya lagu abtirsadaabaa joogi jiray, wada tage. maxay ka tageen? wixii ay diin ka tageenuba ka horreeya, wixii ay ka tageene kale waa baaba-ay. marka waxaan idin leeyahay qof walowba aakhiro ku xisaabtan. macallinkuna qur-aan un yuu dhigin alfaada sida loo akhriye, war ilaahay waxaad isla hortaagi lahaydeen ka barta macallinkaasi. salaada haydin saxo, zakada saa u bixin lahaydeen haydin baro, sidaa rabbigiin u rumayn lahaydeen haydin saxo waxa idinka qaldan. wax kasta oo diina u baahantiin macallinkaasi wuu idin bari karayaa, laakiin idinku haysaa karanina. innaga dhaqan baynu leenahay carruurta qur-aanka loo dhigaa ama diinta loo dhigaa. ma maqashee nebi maxamed malcaamaduu furay intii siiro laydiin dhigayay ama carruur u timi? ma carruur buu nebigu wax u dhigi jiray mise dad waaweyn? waxaa jooga abibakar iyo kuwuu dhalay iyo isaga kii dhalay. oday madaxu wadaacad yahay oo nebigu leeyahay war madaxa cad bal wuxuun ka soo mariya siduu wada caddaadaan meellaba u madoobeyn. kuwaasaa diin baranayay. inagu waxaynu u haysanaa in diinta laga weynaado. hadduu qofku dhowr iyo 10 jirba dhaafo inuu yidhaahdo waan gaboobayo waxba ma baran karo. war haddaa intiina waaweyn la arko oo diin baranaysa, inta yararna way idinka daba dadaalaysa. laakiin intiina waaweyn oo ama qaad u kacday ama wax kale uu socda ama shax cayaaraysa haddii la arko, dee inta kalena raganimada shaxda iyo qaadka u arkayaan inta soo koraysa. marka idinku tusaale noqdo. malcaamadan raggii idiin dhisay ilaahay ka abaalmariyo. dee kala wareegana ilaa iyagu wada kari maayaan, waa inay idinku wadataane. ilaa idinka carruurtiinni iyo dadkiinnii tahay waa inaad la wareegtaan. oo wadaadkii berigii malcaamadda inoo dhisay baa soo socda, socon mayso. wadaadku hadduu wax kale helo waxaanu leenahay qoladaa u dhistay meel kale ka dhis, haddii ilaahay jeebkaaga wax kale soo geliyo. idinku inaa markaa isku tashataan oo ku tala gashaan, oo dadkiina waaweyne wax barataan, oo ku tala gashaan ummadiina meesha degan saa wax u bari lahaydeen. taas baa ugu muhiimsan. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.